السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بضن ملك استوادون كانت كذا سجنتهين فرحة يا عافيمات ما يعني ذي رجينا يا مقالك إن شاء الله وحنا كجهل للدونا شركة وحو كسمة يسيهاي صدح شامبرا وين مركل لقط الروح ذا أما نفتا نقص كنفتا ابن آدم كسعسين يسمر كلاقته شرهان وحو كسمة يسيهاي شركة صدح شامبر صدح ذا شامبر وحي كليهين وفلود فلاش يفان صدح ذا سو شركة كسمة يسيهاي فلود بو كسمة يسيهاي طريرة أيو شركة كسمة يسيهاي ووادي أركين سوليغا waxaynu galnaa inaynu kaadi jirkeena ka soo baxday aynu iska soo dayno kaadidaasi waa excretion ama waa khashin laakiin waxa jira dareere kale oo jirkeenu ugu haray oo aad u badan oo faa'iido inoo leh dhiigii baa kamida dhacaamadii isaamyadii kuwaas jirkeenu ugu haray oo faa'iidadii jirku ku noolaaya waxa kaloo jirkeenu ka samaysan yahay flash wacad ama waahilibka cadka ama hilibka ayuu ka samaysan yahay lafaha dahaara cadkaasi nadayaal buu leeyahay organuu leeyahay qaybo badan buu leeyahay laakiin cad buu ka samaysan yahay qaybta saddexaad waxa la yiraahdaa fen waa kuwa adag ee lafuhu ay ka mid yihiin lafaha ayuu ka samaysan yahay saddexda jambare waaweyn baa jirkeenu ka samaysan yahay marka koobaad haddaba waxa jira saddexda haddii qofku uu isticmaalo saddexdan imika aynu tilmaami doono qofka caafimaadkiisu waxa uu noqdaa mid aad u habaysan buu noqdaa waxa kale oo qofkaasi jirkiisa ka fogaada xanuuno fara badan oo saddexdani haddii ay ku yaraadaan ku iman lahaa arrinta koobaad ama shayga koobaad ee loo baahan yahay qofku inuu si joogto ah u isticmaalo waa cabitaanka waa drink water cabista biyaha maxaynu jirkeenu faa'iido u leeyahay chamberkii jirku ka samaysnaayo fluurka ahaa ayay qaybtii uu jirku ka samaysnaayo ee koobaad ee dareeraha aynu niri dareer ayuu ka samaysan yahay ayay biyahaasi kobciyaan nafaqeeyaan saru qaadaan oo waxay ka dhigaan jirka kuwa hydrated ah oo jirku biyaysan maadaama jirku dareere uu ka samaysnaa oo saddexdii qaybood ee cadkii ama hilibkii iyo lafihii iyo dareerihii biyuhu waxay lagama maarmaan u yihiin organada gudaha inugu jira ee sida kaliyaha iyo sidoo kale dheefshiidka iyo dareeraha jirkeenu uu baahan yahay bay qayb ka yihiin marka haddii aad biyaha si joogto ah u qaadato waxaad kaga fogaan doontaa xanuuno fara badan oo jirkaaga ku imanaya qaybta kale waa fruitka midhaha fruitka la yiraahdo ee sida tufaaxa iyo liimaha waxay u fiican yihiin iyaguna qaybta flashka jirkeenu waxaynu niri waxa uu leeyahay qayb flash ama qayb cadaho oo hiliba waxa kamida uurku jirtii waxa kamida jirkii in markaas caafimaadkiisa uu ahaado mid xoogaysan marka haddii fruitka la noolaatana qaybta flashka jirka ayay awood siiyaan oo qaybtaasi lagama maarmaan bay jirkaaga u tahay in fruitka aad hesho markaas qofku hadduu cabista biyaha badsado midhaha fruitka la yiraahdana uu badsado caafimaadka jirkiisu aad iyo aad buu fiicnaadaa qaybta kale waa vegetableka waa qusradda cagaaran ee la yiraahdo vegetable waliba nooca green vegetableka la yiraahdo in qofku si joogto uu qaato oo si maalinle ah uu qaato caleenta cagaaran iyana waa qaybta saddexaad ee qofku haddii uu basado caafimaadkiisu aad u fiicnaanayo
haddaba saddexdanba waxaad moodaa inay bulshadeena aynaan ku badnayn. biyaha waynu cabnaa laakiin sidii lagu talagalay uma cabno. qudaartana waynu qaadanaa ama fruitka laakiin sidii lagu talagalay uma qaadano. sidoo kale green vegetable-ka ama qudaarta iyaduna cagaaran sidii lagu talagalay uma qaadan. laakiin saddexdan qofku haddii uu basado dhakhaatiirtu waxay inta badan ay ku tagaan qofka caafimaadkiisu aad iyo aad buu fiicnaada. weliba caafimaadkiisu wuxuu noqdaa mid isku dheeli tiran oo balansiga jirkiisu wanaagsan yahay. kaliya waxay soo raaciyaan inuu qofku helo waxoogaa iron iyo waxoogaa zinc iyo markaa maadooyinkii kale sida selenium oo iyagana meelaha ugu faraha badan laga helaya hilibka ay tahay. yacni saddexda haddii uu qaato hilibkana uu ku darsado qofka caafimaadkiisu isma dhima bay dhakhaatiirtu ku tagaan. intaasaan kusoo ururaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.